بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داودyaal dhegeystayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Gungaar. Barnaamijkeena inta uu socdo waxaan diiradda ku saari doonaa saddex dhagar qabo oo al-shabaab u kala qaabilsanaa dejinta qaraxyada lagu xiro gawaarida, toorista bambooyinka goobaha dadweynaha iyo baraha ciidamada iyo qof ismiidaamiyaha oo al-shabaab u soo dirsadeen magaalada Muqdisho. سعيد برق محمود ومقعديس afgarashadu yihiin isticjaal iyo ibnu taymiya waxa uu ahaa ismiidaamiye ee al-shabaab soo dirsadeen xaafadda waxraacade ee degmada Hilwaa ayuu ku dhashay laakiin bilowga noloshiisa reerkiisa waxa ay deegaansadeen degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu dhigan jiray iskuul Mubaarak waxa uu kaga tagay jaamacadda sanadkii labaad oo u dhiganta dibloma macallin iskuul ayuu ka noqday Daarul Amal iyo Mareeri waxa uu ahaa macallin bara ardayda dugsiyada hoose tarbiyada carabiga juqraafiga celcelis ahaan $300 ayaa soo gali jirtay bishiiba balse 2014 ayaa waxaa ku soo booday inuu qoriga uu ka fiican yahay jeestada shaqada kuleetiga cadna uu ka doorto haaraha xambaarka qoriga waxa uu iska daawaday dulyadayn oo nolosha loo aqoonsaday in sidiisa uu duurka maalin ka soo hadli doono waxayse sii dhalisay in alkataay muuqaal ay ka duubto dabadeedna loogu naanayso shahiid ayaaba tahay kaaga darana waa nin u soo baxay inuu isku qarxiyay jagboontiga kilometer 4 waxay xiliga Sheekh Maxamed Dulyadin shahiiday ayaa ku 5 sano laga joogaa 5 sano ka ayad Sheekh Maxamed Dulyadin ma aqaan kulli aniga waxaan ka bartay telefoonada laga daawanayo kombiyuutarada ka bartay kulli koor markan aniga 300 qof ayuu tababar kula qaatay mucaskarka macallin Cukaasha shaqadiisii ugu horeysay waxay noqotay in loo diro Golis buuraha bari ee Puntland laakiin waxaa lagu qabtay controlka magaalada Boosaaso ciidamada amniga ee Puntland ayaa tixgeliyay duruufta ka muuqatay xilligaasi oo uu sida aad hadda ka aragtaan ka dhagor xumaa waagaas kulli marka meesha ay tababarka dhamaysanay kulli buuraasi Golis ka mid noqon la yaray marka gaariga aan qaatay qaab shacabnimo lagu muujinayo afaanta malena marka candamid la raacay marka la gaaray adiga controlka Boosaaso marka la gaaray oo habeen 5 saacadood ayaa gaariga laga degsaday oo marka xabsiga dhexe laga gudbiyay xabsiga dhexe Boosaaso laga gudbiyay kadibna adiga meeshaas ayaan ku jiray 5 maalin muddo 5 maalin kadibna waan ka soo baxay xamar ayaa laga soo dajiyay mar kale ayuu dib u raadiyay kooxdii uu ka tirsanaa al-shabaab laakiin waalidkiis waa ay u diideen kooxdaasi waxayna u soo jeediyeen inuu isku dhiibo dawladda isagoo reerkiisa u arkay inay cadow ku yihiin islaamka ayuu mar kale iska xaadiriyay goobihii ay jabhadaha deganaayeen marka dhanaane gandarshe busley Afgoye iyo ceelasha ayuu arbushaad ka sameeyay intuu jabhadahaasi ka tirsanaa bariiq waxyaabaha cajiibka leh uu Gungaar u sheegay waxa kamid ah inay u sameystaan farxado iyo dabaaldegyo marka xamar oo kale ay ku daadiyaan dhiiga kuwa iyaga kamid ah oo waxa uu wana leeyahay waa inoo baashaal weerarada lagu qaado goobaha isu imaatinka dadweynaha way jireen marka qaar imaan jireen oo farxad aan qabno ama xaflad aan qabno aynu imaan jireen way qodbeen jireen sida qaabkay markay inta badan sidee farxad loo dhigaa farxada laga leeyahay yani maaragta waxa lagu faraxsan yahay yani jihadka heerku maanta uu marayo afaanta maleenay dagaalada wacala gaalada iyo kuwa raacayba markay Muqdisho ayuu joogo marka lagu laayo lagu baabiyo ama wada ama meel loo gal ama xiro dulmad loo qaado waxa way farxad bayno tahay afaanta malena aan ku faraxnaa marka waana bishaaraysanaa marka waxyaabo la mid ah ayaa loo dhigaa xafladaha afaanta malena waxa la baray kaxaynta gaari ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa nuuciisana uu yahay nooha waxa saalidii kulaani batoona la tusikaleeya gaarigan waxa lagu baray meeshan torturo lagu baray oo durkeedii dur u dhow ayaa lagu baray afaanta malena يعني نينا إبريو لي كان يو يريو بريو ما ذو كحي
duurkaas uu ku soo baray kadibna gaariga la tusay kii isku qarxin lahaa oo nooha ah marka batoon ku yaalo steering agtiisa ku yaalo la tusay batoonkaas shaqo ku leedahay kadib Muqdisho ayaa loo soo wareejiyay wadada ka baxda kiiloomitir 4 ee Adeelinka airportka ayaa loogu sheegay wadada madaxtooyada dadka halkaas u istaagsan hubinta amniga waxaa loogu sheegay saraakiil dawladeed iyo xildhibaano sababta uu ugu xushay inay yihiin mas'uuliyiin noocaas ah ha inooga jawaabo bir waxay ku joogaan waxa weeye yani waa la baaraa jubontigaas loo baaraa oo lambar 4 ayaa lagu baaraa markii madaxtooyada ee rabaan inay soo galaan meesha lagu baaraa markii afaanto malena marka meesha lagu baaraayay marka baaris marka la baarayana waxa waaye hal si loo baaray way soo tobanayaan way soo buuxsamayaan mugti safay galayaan ama way garab istaagayaan marka xilligaas hore marka in laga faa'iideysto ayuu saas isgroup jooga laga rabay in laga faa'iideysto dhaxda in laga dhigo yani saf oo kale saas ugu jiraan dhaxda in laga dhigo ama dhinac in laga dhigo gees waa ka xildhibaan qofka marka la qaabkiisa wuxuu kartaa sida suudkii garawaatiga ka fahmay suudkiisa joogiisa garawaatiga waan la baaraa fahmay waan lagu baaraa wadooyinkaasna lagu baaraa waa ka xakaa ugu wataa ya marka uu soo taxay xakaa ugu fahmay markaas ma lagu fahmaya toddobaad ayuu u dhaxay gabar ay qaraabo yihiin si uu ugu reebo adduunkan qof isaga ka dambeeyo laakiin uu ma sheegin gabadhaasi uu qalday inuu adduunka ka safar yahay aaska gabagabada yani nolosheeda gursaday markuu ugu dambeeyso macsalaaminaya adduunkii shaadka oo soo dhawaa ayaan gursaday iyo bir ramadaaneed ninkaas ay torturo ninkaas marka 7 maalin oo kale la joogay 7 maalin oo ka soo tagay maalin kulli waxa ka haraan kaliya ayaga wax kale gamayaan oo guur yani ayagaas mustaqbal yani danka ma leh kulliya waxa uu sameeyay arrinkaasi inuu wax gaar ah u sameeyay kaameramaan uusan aqoonsan karin ayaa u dhiibay qore iyo Bosch waxaa laga duubay riyadii ahayd in mar isaga oo faraha taagtaagaya sida horjooge muuqaalkiisa la daawan doono يعني nin يعني وجه u xiran way kula duurka tagnay dooyay yani camera noocan oo kale la keenay alaga duway marka qoray Boschkiisa watay ka سؤاله من الدويس يكون سابقنات مثل يعني ما ركتها ويكون سابقنات يعني ما ركتها وريسي سيد يعني قرمي كصابرتي جهاتك عصر ما لسوي الدنيا الشهادة قرمي كصابرتي يعني ما حد قدرتي الشهادة كملا فانت مالين يعني سيدو كلامتنا ما حد قدريسا قال هذا ما انت لا دير الرياء اما ودنك كسدو شيء اسلا marka la diray tawxiidka ma xafariina u dirisa dadka raacay urdoon ayaga ma xad u dirisa farinta u dirisid waa maxay afaanta maleena iyo qolada maanta islaamnimada sheeyana muslimiina oo shacabka kamid ah oo isla markaana ka fadhiistay jihadka ka fadhiistay ayagana farinta u dirisid waxa dhan wala soo weydiinaya ma fahmino mid ayaa sheegaa mid ku weydiinaya adiga markaa ka jawaabaysaa waa ka 15 Juun 2019 ay soo dhamaatay sheekadiisa waalida ahayd ee isku bedeshay macallin ismiidaamiye waxaana xilligaasi u qarxi waayay gaari uu dadaal kasta sameeyay si uu u qarxiyo dadka rayidka ah ee wadadan isticmaala waxa uu rumaysnaa dadka uu dilayo inuu u hayo tikidka ay ku aadayaan naarta halka isaga loo soo daaray muuqaal digital ah lana daawodsiiyay xeebaha quruxda badan ee dunida ku yaalo looguna sheegay inay tahay booska uu ka leeyahay jannada gaarigaas hadoo ii qarxi lahaa wixii meesha jooga horta waxa waaye jahannamay wada aadi laayeen laakiinse gaariga waa maaragtaa diiday inuu qarxo waan ku celceliyay meesha laga qarxinay waan ku celceliyay oo ii suuragal weysay kuwii xabadaygu soo furjinayaan baa maaragtaa gaariga ku sheerarayay way kala ordeen difaaca way ka baxeen oo ii suuragal weysay maca dalika gaarigii ayaa dhaxdiisa waxaa ka kacay holac iyo waxyaabahaas ka kacay
kursigan ku fadhiya dhan yacni maaragta waxaa wada qabsaday holac asiga dhan baa holac isqabsaday maadaama holac gaariga oo qabsaday oo dhexdiisa holac ka kacay marka waxaa waa holac in lagu dhinto waa maaragta waa dembi waa ismin kabiir 14 Juulaay 2020 maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay cimrigaha ku furta xabsi ah maadaama Allah ka magan yeelay qasaaraha ka dhalan lahaa qaraxaasi shacabka Soomaaliyeed. Mustafa Maxamed Xuseen oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Sandheere iyo Abu Cabdalla waxa ay ahayd hawsha Al-Shabaab uu hayay dhajinta qaraxyada lagu xiray gawaarida. 2011 ayuu Al-Shabaab kaga biiray rab dhuuro oo bakool ka tirsan malahan aqoon maadi iyo diini waxa uu kaga tagay quraanka suuratu Tawba macallin Janow iyo Sunni jabhada ay hogaaminayeen ayuu ka mid noqday kuwaasi oo dagaalo ku dhufaa ku qaadi jiray fariisimaha ciidamada dawladda iyo saaxiibada taageera ee AMISOM ay ku kala leeyihiin Xudur iyo Hiiraan. Al-Shabaab ayaa u diiday kaalmadii uu ka rabay ahayd inay ku caawiyaan guur laakiin waxa ay bedelkeed u nashqadeeyeen farsamo lagu jeclaysiinayay qabashada howlaha argagixisada. waxa uu inoo sheegayaa mid ka mid ah ehelkiis inuu isticmaalay telefoonkiisa gaarka ah oo cidda telefoon ku xiriirsanaa qarax uu ku soo xiray gaari. ciidamada amniga gaar ahaan kuwa loo tababaray qaraxyada ayaa xilligaasi xiriir u helay raad ahaan nambarka Sandheere waxayna ku dul degeen gurigu ka deganaa Haanta Dheer. أنا هرتي جيبي عريس عليه وساقبتين. أنا مركب حاسلنا لما عن صانين قولي عايز كتاي هبينكي إذا ما يزود هاتين. عليه ساقبت. دالي كاني نمبر كان على ويدي نمبر كان أنا عايز كلام له. قف كلامك بالاستماع شماعي شباب ما تاهي ما يعدي دبورك بدن كدب وحالي وحكون 5 سنة حبسه. inkastoo qaraxaasi uusan dhalin qasaaro iyo sheegashadiisa oo ay garsoorka aragtidooda go'aan ay ku dhiseen waxa uu calafkiisa noqday 5 sano oo xabsi ciidan ah Juulaay 2014 Abriil 2018 kadib xabsigiisii markii uu soo dhameystay ayuu go'aansaday inuu iska xaadiriyo Toro iyo Mubaarak mana uu noqon waano 5 sano oo dib kaga badashay cimrigaha ku furto xukun ah Juulaay 2020 Maxamed Axmed Muumin ayaa lala xukumay oo uu ahaa hage iyo bixiyaha qarashaadka kaga baxa Sandheere dhaalinta dhiiga dadka uu soo shaqo tagay. Waxaa loo doortay inuu noqdo fuliyaha qaraxyada lagu xiray gawaarida 8 gaari ayuu ku xiray qaraxyo Sandheere. Bal Mustafa oo inoo sheeg wixii ugu horeeyay ee lagu baray markii aad iska xaadirisay Mubaarak. Banaanku soo baxay wuxuu ii keenay macallimkii. إن ضحك هرنا وجهي عن الأركين كما حتى قالوا في سي وجران أي إماد مقع موسى إيشاغي مقع عقوة داعي مصطفى مقع اسمعنا ويدين اسم إيه مشاغين هذه وحوي بلاوي يعني الشردي قاف كان اسكو قرن لها iyo qaabkii yani baasha meena gaarida aan u dhijin lahaa iyo qaab walba yani qaabkii aan u shaqeyn lahaa oo ay bilaaway ka hor farsamada qaraxyada waxa la baray sida uu isku qarin lahaa iyo telefoonka ay tahay inuu isticmaalo inta aanu gudagelin hawsha loogu soo diri doono magaalada caasimadda ahayd yani ana qofna la sheekaysanin أنا هالود هذا المريض أنا هالمقاعد أنا فليسنين در كجوني در كمركز مقالة لو قاعدنا أنا هذا قاعدين يعني تصالان مقالة مركز وحاي مادة تتكاد لنا مع سيوتان دي جيمس نصها واقفنا نطبقوا على استعماله يعني وحاي نقول تلمان جوني ويري يعني ماشي مركا imaado qiime dharka la qaadana iska qiime markii shaqo aad qabanayso koofi la'aan has onin yani waxa laga yaabaa inay CC camera ku qabato wajigaaga la arko anuu hataa nin telefoon kuga habo yani mar walba
yani wax adi dhib kuu keeni kara ka digtoonow markaan barnaamijkaas uu ii sharaxay telefoonada iyo qaababka security loo xiro simkaarka in gooni security looga xiro telefoonka security lagu xiro telefoon weynna aadan isticmaalin oo qad leh oo igu yiri qaan kulli dhib badanaa ka imaanawday yani teknolojiyad ahaan telefoonka weyn meel alaala meesha markaas aad joogto la soo raaci karo haddii hataa alla simkaarka ka bixiso dhan laakiin ilaa haddii mar simkaarka iyo bateriga ka bixiso laguma soo raaci karo 5 fiilo iga tirso ha weliba 4 ha istaabsiinin adi markii intaas yiri waxay bilaawatay haddana bahashii furfurkeeda iyo qaabkii telefoonka ayada la isku borgaraamay meynada sidee yani telefoonka wuxuu leeyahay 2 fiilo bahasha qaraxdana waxay leedahay 2 fiilo meynadana 1 fiilo leedahay waxaan ku sheegay 5 fiilo sooma waxba isku miliqsan laakiin mar kale aan ku celiyo Sandheere si uu inooga shaafiyo waxa ay ka kooban tahay miinada lagu xiro gawaarida meynadu waxay ka kooban tahay yani horta waxay wadataa bahal dhejis ah yani barqabato waxay wadataa adi oo badnaan inta ama leeg ay wadataa meynada gooni waaye bahalkan oo fiyuuska telefoonka gooni waaye fiyuuska meynada iyo maxaan ku idhahdaa barqabatada intaasay ku kooban tahay markaan barqabatada haddii la waayo waxaa matartan dhul la dhiga ma ahane gaari ma lagu dhejin karo kow fayuuska haddii la waayona waxa waaye maba qarxaysa haddii telefoonka ayada la isku xiriiriyo haddii telefoonka la waayona wax laga soo wacay ma lahan yani remote waxa waaye bahashaan lagu isticmaali karo waayo gaarigan loo ujeedina la soo fuula markii adoo ujeedin la fuulo gaariha marjajab maraya remote inta ma laga taaban karo an la soo waco an la soo waco bis yani lagu soo yani lagu qarxin karaa an la soo waco bis lagu qarxin karaa markaan telefoonka meynada ku xiran hal simkaara ku jira simkaara lagu borgaraamina haddii simkaarkaas lagu borgaraamay 500 oo simkaarkan haddii soo wacdo inaas ma qarxayso waxaan u dooranaa teleefanadeena xiriirka si aan ula xiriirno dadka aan doonayno sababta aan isugu lamaanina teleefanadana waa inay kala adkaysi badan yihiin waana caadi adiga iyo anigaba inaan wada isticmaalno telefoon smart ah iyo mid kale oo yarahayn kara dabka saacado laakiin al-shabaab waxay u kala yihiin 2 telefoon oo midna lagu qabtaa howlaha argagixisada kan kalena ehelkooda iyo howlaha dadka kala dhaxeeyo ayaa lagu xaliyaa aniga iyo adigaba telefoonkan macno nooma lahan laakiin nuucayga ma aha kii ku habboonaa shaqada qaraxyada telefoonka borgaraamkiisu ay baray sidee يعني تلفون قد أنا ونويا لا فينا لا ينعيش بقول الشن على لها ما كان ما لهن كان برنامج كاس برنامج كاس ما لهن كان ما لهن برنامج حلا بقول إيش وحلا بقول الشن وحلا سمك على نوعية هراء راح نروح كليه هاي بحالي رافدس وكليه هاي markaan telefoonadaas la ilaa kulli program sidoo uu tusay ku tusaalay bis intuu kale ya ku tusaalay macnaha intuu wuxuu kale sidoo programina may program waxa tagay setting ka tagana markii settingkaas aad tagto meesha gudaha adana meesha off iyo on wax saas way maana waxa yani kor hadda laga tilmaami karmaan laakiin sano isi yaalo
yani aan kugu tusin karin markaan adii teleefonka nambarkan sida layskugu soo borgaraamay aleebale kaagii kan isku mid laha hadda 105kan baraarug kama haysano sida ay suuragal ku tahay zaxmadda iyo ciriiriga ka jira muqdisho oo aan haddana wada ogeyn dadkeeda gaari qarax lagu xirayo laakiin fursadaha argagixisada ay gaaddo iyo sida ay ugu sahlan tahay ka dhex faa'iidaysiga bulshada dhexdeeda ha inoo sharaxo Abu Cabdalla يعني horta laba walxaad waay mar gaariga laamiga uu ku baakiman yahay dhinaciisa hadii ba la waardeynin gaarigan oo ciidan saraakiil aan wadanin oo la waardeynaynin dhinaciisa iska istaagi karta tusaalaan laamiga markaa marayso boqolaal mooto baakin iska jirta arkaysa gaarigan intuu iska taagan yahay mootan intay taagan tahay qofka mootada iska dhax fadhiya yani adi ma ogid anuu rikaab sugooy anuu dan kale wato ma ogid markaan ani mootada dhexdeeda iska fadhiya alaabteeda meynada gadaale ii saaran tahay ii diyaarsan tahay keliya waxaan gaada jaanis mar gawaarida kuwa xagga u socdana ay iga fog yihiin kuwa soo socdana ay iga dheer tahay aan gaadaaday 5 daqiiqo mise 10 daqiiqo haddaa sugtid jaaniskan waa kusoo maraysaa jaaniskaas yaraan looga faa'iidaystaa waana adii markay ugu badato 3 ilbiriqsi 1 2 3 intaas ka badan waqtigeeda gacantaas aad taagaysa bes culayska ugu badan haddaa taagta ayadaa kaa boodaysa baashan qab ay leedahay bes markaa mootadaada iska kacsanay hore u socona shaqana ma kulliid waarday waxaas saas marka ku dhaji bas leedahay weli adoo banaadir sii maraya waxaan leedahay tusaalaan shaqaalaha ku samaysay adoo banaadir maraya waxay leedahay ana waa ku dhaji waana baxay agagaarka Macalin Nuur ee degmada Dharkeenle ayuu ka sameeyay isku daygiisii ugu horeeyay ee dajinta qarax gaari laakiin waa la soo waayay hawshii loo baxay qorshihiisa labaad ee qorshaha uu ka soo muuqan doono CCTV kaamirada dhaqdhaqaaqa ayuu ka sameeyay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir wixii xilligaasi ka dambeeyay ciidamada ayaa il gaar ah ku baadi goobayay Sandheere muuqaalkaasi oo ku baahay baraha xiriirka dadweynaha sida Facebook waxaa Sandheere la faray inuu iska xaadiriyo Mubaarak si loogu sheegay natiijada qobarra isku sheeg natiijadooda ay ku soo dhamaatay inaan la fahmi karin Sandheere habeenkii markii sida aan ku jiftay suuxii 2 saac waxaan arkay anoo Facebook ku jira barnaamijkii gaariga anoo meynada ku xiraay sidiisa Facebook la soo dhigay Cabdullaahi waxaan ku yidhi Cabdullaahi barnaamijkii shalay ay sheegaysay runa ahayd waxaa la soo dhigay Facebook muuqaal aadi video aadi wuxuu yidhi soo baxay ma argay 2 saac markay ahayd waa baxan mubaaragaan aaday habeenkii meeshaan seexday habeenkeeda saddexaad waxaa la ii keenay anaan filinkii ayagaa loo keenay laptop ku jira barnaamijkaa isla fiirinay iyo waxay igu dhahaan barnaamijkan wejigaaga lama fahmaa si kasta oo loo dadaalo ma la fahmi karo adi markii intaas igu yireen waan ku qanaano fuliye kasta ee argagixisada ka tirsan waxba kama oga cidda uu nolosha u aqoonsanayo haddii uu qarxiye yahay ama dilaa isticmaalay bistooladda waxaase weydiiyay haddii lagu yiraahdo ku xir qaraxan gaariga xildhibaankaaga sidee kaga falcelinaysaa taasi oo ka dhigan in fuliyaha uusan marnaba rabin xanuujinta xigaalkiisa gaarigiisa meel yaale ku dhaji dileelaha ku dhajinay sabab xildhibaankay waa ninkii soo dameentay waa bari ninkii soo dameyn lahaa waa hadii dhab kale ugu dhaco qofkii iga furfuri lahaa sax markaan ayadoo taas laga cabsanayo
qofka mabda ahaan uu aaminsanaan karaa ninkan inuu dowladda ka tirsan yahay oo la dili karo haddana qidad ahaan u dhow inuu ugu haro yani qaraab ahaan ugu tago aa dhici karto. Sandheere isaga laftiisa ayaa inoo sharaxaya marka aad ogaatid qaraxa kuugu xiran gaarigaaga sida ugu habboon ee aad kaga falcelin karto. markii gaari lagu xiro bahashaan qofka intuusan fadhiisan gaarigiisa ka hor uu arkaasa hadduu markaas ninkaas argagaxay waxba aan isgelin tartiib gaariga iskaga tago uu dad u soo sheego. dhibaatada ugu weyn jirto waxaa waaye qofka miinada markuu arko u qaylina markuu qayliyo yaa maqla dadka dhan oo ku jiro ninkii alaabta watay isla markii waa la soo caabis. dhibaatada ugu weyn taasay ka taagan tahay. qofka aqoon leh kan kala furi karaa may laakiin qofka markuu gaariga inay ku dhegan tahay uu arko yani wuu furi karaa isla markii dhab waa iska qaadi karaa waa iska tuuri karaa. Isxaaq Kerow Aadan Cali oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Cabdiladiif Cumar Faaruq iyo Cabdiraxmaan waxa uu al-shabaab u qaabilsanaa tuurista bambooyinka gacanta. 2014 ayuu isaga tegay tuulada Dudumaalo oo ka tirsan Bakool safar dheer oo isugu soo maray abal 20 jiro goof gaduud oo diin leh kurtun leh iidaale diinsoor raamcadey kadib waxa uu 150 qof tababar kula qaatay Boosh Madiino golweyn iyagoo duulaan u ah siina maraya meel la yiraahdo Walid Suleymaan ee isaga iyo kooxdiisa u cuneen una cabeen maalin Ramadaan. Ma ahayn safar laakiin inay daadiyaan dhiig muslim ay u afurayaan iyagoo muslimiin isku haysto una dagaalamayo islaamnimo. anaga war Suleymaan markaan degnay gaara raacnay meel wabiga jiinkiisa aan degnay iyo ku degnay baarta ugu degnay marka habeenkii dhan wal weynay war hadan magaceedan aweyno biin ka dhamaayno wabiga jiinkiisa ku taal meel qoryoole meelaha u dhowdahay horta war aad u dheero iyo haasana hata ugu jira la sheegay magaca ilo san yahay taas degnay soo ahayday habeenkii marka meesha soo ahayday ma markaan afurnay luga bilaaway marka luga bilaaway sa luwaayeen marka luwaayeen ilaa quraha ka soo bixisa luwaayeen marka cunto lama cunin salaam kaliya wala dugti cunto lama cunin soo waa birin soo iska raa lugna wana dhamantahay ka bacdi tamar iyo waxba wadani marka tamar iyo waxba la waday tamartiya la cunay qof noo fadwooday mid gaba naftiis ka bacdi raashin in ba umrada in waday noo keen si ku cunana kana fasax uu qaatay kadib waxa uu u guuray Hiiraan isaga iyo koox kale ayaa dab qabadsiiyay 14 gaari oo u rarnaa dad ganacsato ah. sababta ma uusan ogeyn laakiin waxa uu dareensanaa inaysan bixin baadii ee al-shabaab kaga baahnayd. marka hortii markii laga qabsaday ay buuray fuulay marka buurta looma kori karo hadaa kortoonka soo degitaankeeda inta ka saacay ku qaaday buldiino waatana ay horta soo socday marka xaliri laga soo laabto boorta la gubal ay gran baarta marka intii la gaarto waxay noqotay 14 gaaray noqdeen intii la gaaray mid waa gum waana daraad oo shay waa gum waay walaga nooy jantada marka shada waa boodeen walaga nooy shada lagu shibay shada kaliya ba laga soo laabtay jantada waa la waday koon ma la gaarin waa laga soo araray markii lagu waayay shadaal ku shibay shirka ma taa furto shadaal ku shibay kuraas lagu fadhiyo jantay ku taana marka kuraas matoora marka la gubanayaan wal raashin isla gaaraan. mar kale uu ku soo noqday Shabeellaha Hoose waxa uu dagaal arbushaad ah oo ku dhufaa kaga qayb galay deegaanada Yaqbari Weyne Sabiid Caanoole Bariire Laanta Buure Baar Ismaaciil Amprees iyo goobo kale. sigaara wadooyinka jayga ah ee dhinac mara Afgooya ayaa loo xilsaaray kadib markii ay u arkeen sida uu ugu nugul yahay howlaha argagixisada waxaa loo doortay in loo wareejiyo magaalada Muqdisho. horta aniga hadda ka karsanaa saan u joogay amar ay imaaday Allah madajibsa lagu darraa arintaas horta ko balan oo ila galay ana hore u sheegaynin hada arinta iga qaato ay qaatay hadii iga qaadan waa saas waay balan ila galo dhaay ina warkaan ku sheegay gudbinayn
heeyo waan eri ma gudbinayo waxaan kaa rabaa niyow inaad macnaha lagu daro rag xamar in lagu daro madaxjibis oo kale raggaas haa rabnaay ka warani ulaas ma kugu tahay mise yaa la dhahay diyaar waan ku yidhi ulaas maahane haye haddii saas tahay joogi dhahay marka ilaa lagaga soo baahanahay joogi dhahay jawada dhahay joog ilaa kugu wacin yani marka muddo bal ku dhawaada joogeen marka kabacdi way soo wacay anoo asuna maqan yahay jabadii joogay soo wacay marka camarka wuxuu dhahay leeyahay alaabtaada diyaarso ceelashii biyaha ayaa laga soo tuuray laakiin gabar ayaa marti gelisay oo la noolow la yidhi ma ahan hooyadiis walaashiis ama maru u dhaxdo mana ahan mid uu maxram u noqon karay waa sacaado kale oo maafiyada ee ka eegatay filimada dhabta ah ee la jilo laakiin kama xajiyaan ku been abuurashada diinteenna marka tahil isoo waay marka hay war waan fiicnaa xaaladda isku aantahay niyow nambar ku siinaa adii nambarka oo soo siiyey gabadha kusoo wacayso kuweyso guriga geynayso saas waa inay gabadhaas la noolo dadka isku daray dhahay niyow diyaar waan ku yidhi kabacdi gabadha ay soo wacday waa soo socdaa gaara soo saaranahay dha marka yaa soo saaran tahay haye insha allah aan dhigi marka masaajidka u jiifay soo wacday marka inta joogtaa masaajidka kasoo baxa xarig kale oo masaajidka kasoo baxay ilaa ma soo istaagay ayadoo marka socota arkay marka ayadoo marka aynu boorso watay marka boorsada isku fahmay marka hadda miyaa qof la joogay haa nambarkeeda ogaaday ayadoo markay ogaatay kabacdi waa asraacday xaafadda tagnay marka xaafadda waa tana goraa ligeeyey wiilkeeda waa maqnaa marka wiilkeeda ma joogin xabaal kusoo maqnaa marka guriga ligeeyey waa kana baashara lilaahi marka asmartiyeyn oo kale iyada ayaa ahayd qofkii ugu horreysay ee xamar soo gelisay bambatuurkan kuwo badan oo aan la soo kulmay idina aad daawateen si siman ayay kaga jawaabeen su-aasha ah sidee qof gaadma loogu dilaa qofbaan waba socdaaba ma kuu jeedo kaasoo kale waa fursad laakiin qofaa kusoo fiirinaya oo kale indhaha waa ka leehine waana agtiisa maray adi gadaashiisa u baxe oo fiirinaya iyo ku mashquulaya oo kale iskama dhegaysid markaa dhaaftiba kusoo laabanaya hadday kugu soo jeedas ku dhejinaya qofka socdoona mar walba inaad gadaal ka marto noqonaya qofka hortiis kuma soo baxaysid si waxaa kaa noqonayaan qofku fiirinayana bahasha loola soo baxo qofkaasoo kuu jeedin baa u balan kariyaa qofka haddii bahashiis goriis wato gori wato asa u wareeganayana mabil u dhawaan kale kaasoo kale marka taas waa isoo baray waxaa loo tababaray dilalka gaadmada ah iyo tuurista bambada gacanta dhar nuucee ah ayaad u baahan tahay marka aad rabto inaad F1 bam tuurto bahasha ana qaad marabto meelaha la haa xilliga oo kale macnaha bahasha in la qariyo aad baa lagu weydin jiray bacdi waxaa la fahmay marka ma-uus amase jaakad oo kale aan laga fahmaynin buurin oo kale waa la qaataa jaakad la gashana kabacdi ma-uustaa wadataa bahashan hoos u laalaa damaho ma-uusta kor soo qaadadii waa socohe ilaa meesha ka gaarto haddii lagu arkana waa saasayno labadaas u kala baxda laakiin ma-uustii jaakad hadda lagu qaataa an labadaas baa ku qaadan jiray bacdi iyo waxaas hadaba waa layska fahmay sida uu kaga dhaxsanaa farsamada tuurista waxaa mara kaaga ah sida uu u tuuray bamkiisii ugu horreeyay agagaarka Tawfiiq afar darji ilaa habeen ahayd maqrabe inta laga soo baxay ayaa ahayd marka waxaa iga soo Cabdikhayrka ila soo isna waa ila soo laakiin asoo meesha waa ka maqnaa waa heer ka fogaa Cabdikhayrka waa ii jeeday marka naga hadda magaalada kala ka saaco kala soo wada la dhayno Cabdiraxmaan sida labada magaalada hore uu shaqeynayaan waa tanaagasho kutur waana soo laabantay soo maro dhayno ayuu meeshii ku lii calaamaday waxa ahayd markii laawa dhanka Tawfiiq hagiis kaalada shidaalka dhanka tuuro haga u tuuro la rabay meeshii marka baabur leeyahay dad ba u jeeday ma arkay marka laamaha gudbay waxaan tagay marka kaalada shidaalka
ayaga joogaan dhan kale ka joogaan tagay marka mooto bajaajto iyo waxa meesha taaganaayay kana waa u jiid marka aniga baash maanta habeenkaas igu horeeyay baa la qarqarnay ma ogeyn gacanta kale ku haya waxaan in dabool kala soo dhaxmaray meesha taaganaayay dad marka bajaaj sarra fiirfiirinay markaan inay arkeen u dareemay markaan maash surwaalkani waxa gadaasha ku geersanay marka kabacdi naagtu iyo dad joogay marka meesha qori wadato inaan ii taagnaa marka dad waa ka fogaan heega ay fadhiyeen aniga waxaan ku aadi kaliya naagta iyo ninka dhaxdo heega ku tuuray marna waa la laaleeyaa marna waa la isku taraarixiyaa waasa baaxadda ay kuu jirto fogaanta hadafkaaga marka aad bambada tuurayso waa kan Kerow oo ina siinaya tusaalaha ku xeeran shaxda tuurista bambada bamka mar gaajada inta laga furay baa la tuuray si qof loo tuuro kale dad ka fog oo kale iyo dad ku dhow taraarixin karto labadaas baan soo baray marka hadda sheegay waa qofad ku dhow si hooga u tabar iska dheerayna dad ka dheerihiin haday ku dhow yihiin meesha waa meel bilaami oo majaay mise talaalka oo kale ay tahay oo saay kaaga fogaan wayr u taraarixin ayda soconaysid marka diyaarada ka baa u tagay waa ka dadka ay fadhiyaan oo fiican yihiin oo dad kala fogaan ahayn hal qofna loo dhiib karo haduu fadhiyo hal qofna hadda ninkaas loo qasay xalaf badal loo oo loo dhiib karo haduu fadhiyo oo baxashana helaysa loo yahay laakiin inta badan laakiin lama sidee loogu tuuraa dad waardiyaha iyo bam gacmeed mana jirto ogaalkiisa qof saaran kolba waardiye farsamada bam loogu tuuri karo Isxaaq halka inay fadhiyaan fiican dad taagan waxba kuma tarto waxa lama talaabo saddex talaabo qaado sax hadda wax kuma tarto laakiin markay fadhiyaan oo qorowda intuu yeelo oo shaas kacbaayo biis kacbaayo oo fadhiyo anta asaka qorig absanaya baash ka markuu istaagan waxa leeyahay laakiin dad oo fog jino taagan laba talaabo qaado waxay ka tartamana laakiin shaytu talaabo ay fir gaaraysa la dhahay sida shaytu talaabo oo kale wax ku dishaa waa la dhahaa laakiin qof haduu ka seexdo firka kor u aada laakiin wixii ay ilaahay ku qoray baan dhaafinin laakiin dadka markay fadhiyaan oo kale ay ku fiican tahay in wax la tuuro dad oo taagan oo kale dheer oo fiican hal waardiyo meel saaran waxa ma loogu tuuro ma jirto waxa loogu tuuro ma laha qof meel saaran buur saaran haddii meesha fadhigiisa ugu dhacdo mahane hoos ay ku dhacay mar dhankiisa baaha difaac waa dhaafimo ismeesha soo gambaha wax gaareen baashile ka gacanta ka baxday maana ama ha joogaano duurka ama magaalada waxa ku geystaan marna al-shabaab kuma dhiiran karaan inay sii sheegaan ficilka ay geysanayaan ama ay toos kaga horjeestaan weerarada ciidamada dawladda marka la joogo magaalada waxay isku dhex qariyaan shacabka iyaga oo ujeedadu ay tahay inay ku dhuntaan dhexdooda hadii si aan lagu dareemin orodkaada iyo gacantaas aan dhees la arkin waxaad awoodi karto ku gambeey dad hadda rabto waa dhaxgale dadka ka mataay waa tuure waan gaar u soo laabnay hadii kale bawar dum meesha taagan yahay dadkan ay u dhigeen korkiis leesan kornaa waan ka baxay dadka xaalasho ay heleen ku taalo laakiin banaa cad ay taagan tahay dadkan ay ku jiidaan waa bax meesha aan soonin laga soo laabtay la soo talaa iska dhaaf taas ka gambiil ah laakiin haday meel dad ay joogaan baawarta ay joogaan sida darjiinka oo kale baawarta wala istaajiyaa meesha wala ka rartaa wala soo isku dhaafaysa marka hilli baawarta isxiraana wajirtaa baawarta ku gambeeyay taqaday dhala baawarta ay waa dardaray adina waa ku dhex jirtaa oo baadeen haday gaaro ku dhufin 19 Juulaay sanadkii tagay maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay Isxaaq Kerow dil toogasho kadib qarax Ramadaankii tagay uu ku dilay Allah u naxariistay Faarax Cabdulla Cariif May 2020 kaasi oo ka tirsanaa ilaalada laanta horseed ee suuq bacaad iyo ka qaybgalka dilka dhacay weydo guud ahaan barnaamijkeena guugaarinta ayaan ku soo gabagabeynayaa anoo Cabdiqaadir Ciise ahayd la socodsiinayay saaxiibada diyaarinta iyo farsamada igala qayb galay barnaamijka waan u mahad celinayaa kan mid lamid ah inteenu ku kulmeynana
anaga iyo bahda isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.